laga soo bilaabo shalay galab xalay ilaa iyo maanta waxa aad loo hadal hayaa geerida marxuumad Aamina Maxamuud oo meydkeeda laga soo saaray sulukiyaal xaafad ka tirsan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kadib baaritaan dheer oo ay sameeyeen ciidamada nabadgelyada Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay in meydka Allah u naxariistay marxuumad Aamina ay ka soo saaraan boosaneer oo ku riday ninkii dilay ilaa iyo hadda lama soo bandhigin magaca iyo sawirada ninka lagu eedeeyay inuu geystay dilkan kaliya ciidamada nabadgelyada ee Sirdoonka waxa ay soo bandhigeen sawirada marxuumadda ninka dilay haweeneydaas ayaa la sheegay in ay ku lahaydeen waxa uu ugu yeeray gurigiisa oo u ballan qaaday inuu ku wareeji doono maadaama uu sabixi kari deyntii ay ku lahayd hase yeeshee markii ay ugu timid gurigiisa ayuu dilay kadibna waxa uu ku reeyay suulisii aan loo helin meydkeeda sidaas ayaana muddo maalmaha lagu weysanaa meydka marxuumad Aamina baaritaan dheer kadib waxaa la sheegay in ninkii watay bajaajta qaaday Aamina ee geysay guriga lagu dilay oo sheegay in Aamina ay ugu wardambeysay halkan waxaana lagu guuleystay in laga gungaaro kiiskan oo la helo meydka lana soo qabtay ninkii geystay dilka dhacdadan ayaa la yaab ku noqotay dadka reer Baydhabo waxaana socdo baaritaano ay wadaan ciidamada nabadgelyada ee Koonfur Galbeed oo kaalin weyn ka geystay raadinta iyo dib u helista meydka marxuumad Aamina